deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa mararka qaar ka dhaca dagaal u dhexeeya Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidanka loo yaqaan macawisleyda oo dadka deegaanka ah kuwaas oo si dadban ula shaqeeya ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya. Dagaal labada dhinac ah ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu ku dhex maray Al-Shabaab iyo sidoo kale ciidanka loo yaqaan macawisleyda tuulooyin iyo deegaano badan oo hoostaga gobolka Hiiraan iyadoo dhinacyadaasina ay guulo kala duwan ka sheegtaan dagaalka. Mustaf Shaati oo ka mid ah hogaamiyaasha ciidanka loo yaqaan macawisleyda oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dhowr deegaan oo ka tirsan gobolka Hiiraan ay kala wareegeen saacadihii la soo dhaafay Al-Shabaab kadib dagaal xoogan ay kula galeen sida uu sheegay deegaano ka mid ah gobolkaasi. waxaan soo gaarnay deegaamo muddadan ay nimanka cadawga nabadiidka nooga jireen sida caag sibiri ceeridaad wajab meesha la yiraahdo xaaji nuur meesha la yiraahdo sayinta dooyaale tii barakadii teeg urur intaasaan ka bixinay alxamdulillaah ilaahay baa ku mahadsan. shabaabku wax weyn maaha dadka sidii ay madi jireen maaha taa cali jeytaa hore uga hadlay hadda koox gabdhaha in loo tababaro wuxuu u baahan yahay gabdhaha bis lagu fasaxo tabartooda way yaraatay cid kastana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay ku dayato sida maamulka Islaan State oo hadda ka hor u curiyayba cali jeyta uu curiyay cid kasta oo moodaysa shabaab inaan lala diriiri karin. shabaab waa urur yar oo argagixisa haddii bannaanka la isugu tagana aan wax galaynin fara ku tirisa cid walba gumaysi intay ku jiri lahayd nolol xayaa ku noolaato cadawga iska dulqaado ilaahayna wuu garab galayaa ilaahayna raalli kama aha dulmiga oo wado waxa weeyaan waa niman aan islaan waa la dhihi karin cadawga bini aadanka weeyaan dhulna reebi maayaan dadna reebi maayaan xoolana reebi maayaan xoolay way cunayaan geedihiina way gurayaan oo way qallajinayaan waxa weeyaan geedihii tilmaantaha way gurayaan culumadii way laynayaan ceelashu waa gubayin waninka ceel islaam ascabay qarxiyay waa islaan lama dhigi karo dee waa cadawga bini aadanka waa in loo diyaar garoobaa waa in lala tacaalaa gabadha ariga la jirta waa inay soo sheegtaa ninka geel la jira waa inuu soo sheegaa annagana waa inaan nafteena u hurnaa ninka naftiisa marka horo maalkiisa iyo dalkiisa wuu badbaadayaa. dhammaanteen waxaan isku boogaadinaynaa saqiir iyo kabiir cardun iyo ciroole cadowga inaan iska dulqaadno dalkeennana aan ka xuraysano. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hogaamiyaasha ciidanka loo yaqaan macawisleyda ayaa tilmaamay inay diyaar u yihiin sii wadista dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab iyadoo dhinaca kalena guusha ay sheeganayaan ciidanka macawisleyda weli aysan wax wara ka soo saarin ama aysan ka hadlin dhinaca Al-Shabaab. Maxamed Cabdi Xasan, SMS Somali TV, Muqdisho.